مسؤولينta ururka samafalka ee Gaaroodi oo wehelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Dr. Fuad Cabdisalaan ayaa waxay maanta deeq ka kooban bustayaal agab kale ay gaarsiiyeen barakacayaal ku soo barakacay deegaanka Ballimataan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Ballimataan oo ka dareen celiyay deeqdani la soo gaarsiiyay. halkan waxaan ku soo dhaweynayaa waftigan noo sida deeqda ee ay ka mid yihiin gudoomiyaha ururka Gaaroodi iyo xubnaha ka mid ah ururka Gaaroodi agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku soo dhawaada si wanaagsan baanu idinka gudoomanay hawsha noo keenteen qalabkana waa sheegteen waanu idinka gudoomaynaa anaguna inuu sac cadaalad hoos dadku si kala dhibaato badan ama hareeraha uga yimay oo kala waxsiino ayaa nooga baahan yahay naftaada waxa aad jectay walaalkana la jecelo baalay ka gurigiisan jooga iyo ka meel ka yimi kaasa si dhibaato badan soo barakay waxaan hadalka ku soo ururinayaa idinkuna waanu idin mahadnaqaynaa gurmadkana hanagu gabina meeshii u gurma kartaan dadku aad iyo aad buu dhibaataysan waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Gaaroodi Mudane Cali Xasan waxaanu ka warbixiyay deeqdani ay maanta soo gaarsiiyeen degmada Ballimataan. Salaatu salaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam sida ka warhaysan shalay halkan waanu nimi waana markii koowaad ee dadkan meesha ku soo barakacay loo yimaado amaaladii ugu horeysay toona waxay ururka Gaaroodi ilaahay baa mahad leh maanta haddana waan xalayto waxaan u soo dirnay markaan xaaladda aragnay laba booyado biyaa way soo gaareen maanta waxaanu halkan ku wareejinaynaa deeq ka timi dadkii deegaanka u dhashay ilaahay khayr ha siiyo waxaan ilaahay u baryaynaa in ilaahay xasanaadkooda kor ugu qaado alaabtani waxay ka kooban tahay 100 buste iyo 200 oo bacaha la goglada ama cawda la goglado intaas aanu halkan ku wareejinaynaa gudoomiyaha iyo gudiisa arrintan runtii waxay noqon doontaa deeqdii ugu horeysay ayay noqon doontaa insha Allah qaylada deynmayno xukuumadii ama dawladda Soomaaliland way nala socdaan maanta waana fursad qaali ah runtii in maanta dawladda ka tirsan nala socdaan si ay xaaladda u eegaan una arkaan hay'adaha kale insha Allah waxaanu qayladaan u diri doonaa in waxyaalihii kale nolosha asaasiga u ahaa in la helo oo la idin doono oo ururka Gaaroodi aad ugu mahadnaqaya xubnaha xukuumadda beesha kaga jirta oo runtii dareenkii aanu gaarsiinay markiiba ka jawaabay oo uu kamid yahay wasiirka Cabdilaahi wasiirka xanaanada xoolaha Dr. Fuad Cabdisalaan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga oo gunaanadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu halkaasi ka ballan qaaday inay ka xukuumadahan door weyn ka qaadan doonaan gurmadka abaaraha maanta halkan baanu nimi oo aanu nimi dadkan barakacayaasha kadib markii aan xalay ururkan Gaaroodi shalay uu yimi halkan warbixin uu naga soo gaarsiiyay xaaladda sida ay tahay intii taasaasaakana keentay waxaanan ku aragnay ma garanaysaa arin aanan ka filanaynin oo ah barakaca noocan inuu meel sidan oo kale uu ka jiro oo Hargeysa ama caasimadda dibadda inta u jirto la garanayo saacadii bar wax ka yar loo soo soconayo waana runtii mid u baahan in wax laga qabto ka xukuumad ahaana waxa jirta guddi heer qaran ah oo guddida gurmadka abaaraha ah oo runtii in badan neemiga shaqeynaysay hawl badan qabato mahad celinayo anoo afkii xukuumadda ku hadlaya maantana deeqdii koowaad soo gaarsiinay halkan waxaan ururka Gaaroodi uga mahad celinayaa ilaa xalay inay iyaguna u dadaalayeen oo dadkan biyo iyo waxay u baahnaayeen runtii ay u keeneen baahida ay qabaanna ayna soo gaarsiiyeen wixii aan awoodayada ah ama guddida heer qaran ee abaaraha ah ama xukuumadda ahna sida ugu dhaqsaha badan la waxaanu rajaynaynaa inaanu dadkan runtii wax lala qabto xaqiiqda aanu indhahayga ku aragnay aanu maanta soo dul istaagnayna aanu xukuumadda ilaa halka ugu sarreysa runtii aanu gaarsiino oo aan dadkan waxba runtii laga hakran waxay u baahan yihiin maanta waxa weeye nolosha wixii asaasiga u ah haddii biyo tahay haddii cunto tahay iyo haddii tahay waxay ku jibsanayeen ama haddii ay tahay waxay ka harsan lahaayeenba milcida cadceed runtii jirta waxaan ku dadaali doonaa inaanu cid walba oo
wax looga helayo ilaahay baa dee kulley deeqdiisa lagu dhargaaye aynu wixii awoodeeda ah runtii aanu dadaalno maxamed midhiq shabakada caalamiga ee Togaarar